madaxweyne ku-xigeenkana dee hogaanka xisbigana waa laga saaray oo kuma jiro, waa madaxweyne ku-xigeenka qaranka uun sharaf iyo karaamana waan u hayaa. inta uu joogana isaga shakhsiyan anigu wax dhacdhac igama tegi doonaan, harina igama tegin, iminkana iga tegi maayaan, eedayna maayo. wixii uu dalkiisa iyo dadka u qabtayna taariikhda sheegi doonta. siyaasi Roble Muuse Xoosh hore uga tirsanaa xisbiga muxaafidka ee Kulmiye oo dhawaan sheegay inuu ku biiray xisbiga mucaaridka ee Wadani oo maanta wareysi khaas ah siinaya telefishinka Badda Cas 24 TV ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay waxyaabaha ku kalifay inuu ku biiro xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa waxa uu yidhi hadda waqtigani waxay u muuqataa oo igu kalifay inaan siyaasadaydiina sii horumariyo halka aan ka sii horumarinayo isleeyahay hankaaga uu ka meel mari karaana waxa weeyaan xisbiga Wadani baan u arkaa maanta. taas ay igu kaliftay taasaan rabaa inaan siyaasadayda halkaas iminka saan isleeyahay day muuqata inaan deegaanadeena ka horumarin karo, siyaasadeydana aan hankaygana aan ka iibin karo. waxna aan siyaasadda maanta dawlad maxaan ku dhahaa dalka ka jirtana waa xisbi weyn oo mustaqbal leh, berrina insha allahu aan isleenahay ugu guuleysan talada dalka. bulshada siyaasadda falaqeynaysa inta badan waxay sheegayaan maadaama uu kaadirintii ugu weynaa xisbiga Kulmiye ahaa xildhibaan hore Roble waqtigan uu ku biiray Wadani horena isku dhinaca deegaan ahaan aad isku dhowdihiin madaxweyne ku-xigeenkan Cabdiraxmaan Saydici ay isku dhowdihiin isku siyaasadna ahaydeen waqti hadarkan maxaa keenay inaad ka hoos baxdo siyaasadii Saydici oo aad u qacan hadiso xisbi mucaarada? horta madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saydici madaxweyne ku-xigeenka sharaf baan u hayaa, challenge-na kuma yihi siyaasadiisa oo nin hadda maxaan ku dhahay isaga wax xumaan oo shakhsiyan naga dhaxaysan ma jirto. rag tolayno nahay deegaanka ka soo wada jeeda, run ahaantiina waan la soo shaqeeyay, isagoo mucaaradna waan la soo shaqeeyay, isagoo muxaafida laba jeerna waan la soo shaqeeyay. waxaan la qaban karayay waad la qabatay baan isleeyahay. haddana isaga kuma yihi caqabad kuma yihi, sababtoo ah waqtigiisii ugu dambeeyay buu madaxweyne ku-xigeenku hadda ku jiraa oo sanad u hadhay. sabab aan hadda anigu isaga laygu xoqo la dhaado siyaasaddiisa ka tagtay ma jirto. meel baa ifaysa anuu aragtidayda waxaan isleeyahay mustaqbalkayga siyaasadeed waxaan ka dhex arkay inaan halkaa ka horumarin karo. isagana waan ku hambalyeynayaa inuu ilaahay waqtigiisa uu ku simana waan ugu ducaynayaa oo dhammaysto si sharaf leh ku dhammaysto. waxaan u arkaa kuwa sidaas leh inay dad badan oo aan la xijeclo ka qabin siyaasadda inay yihiin kuwa sidaas lihi iyo dad dhawaan nagu soo dee aragti. horta xisbi maxaan ku dhahay siyaasaddu waxa weeyaan dad iminka ay ugu horeyso garab joogga iyo inay xisbiga Kulmiye ay ku cusubto meelo kala joogi jiray ayaa hadda ku sheekeeyo yiraahda Roble uu ka tagay xisbiga dhabarkuu sii jeediyay. xisbigan isagoo mucaaradana uu ku soo daalay, waan ku soo dhabardeegnay, ilaahay uu nagu guuleeyay kuma khasaarin. waqtigiisina uma arka maanta inuu Kulmiye waqti badan jaanis badan oo siyaasadda ka haysto nin mustaqbal leh oo siyaasadda inuu sii horumarin karo. waxaan u arkay aragtidayda waxaan ku sheegayaa deegaanadayda mustaqbalkooda iyo aragtidayda siyaasadeedba waxaan isleeyahay xisbiga bulshaweynta iyo bahweynta Somaliland dhammaanteed ay iskugu tagtay ayaan isleeyahay waad halkaasaad ummadda wax uga qaban kartaa, halkaasaad adiguna kasii gudbi kartaa. meel aan arkayno inay sii socoto. madaxweyne ku-xigeenkana dee hogaanka xisbigana waa laga saaray oo kuma jiro, waa madaxweyne ku-xigeenka qaranka uun sharaf iyo karaamana waan u hayaa. inta uu joogana isaga shakhsiyan anigu wax dhacdhac igama tegi doonaan, harina igama tegin, iminkana iga tegi maayaan, eedayna maayo. wixii uu dalkiisa iyo dadka u qabtayna taariikhda sheegi doonta. waqtigiisana ilaahay kugu siman leeyahay. anigu se waxaan isleeyahay ma arko maanta meel Kulmiye aan ku sii dugsado oon sii dul fadhii karo. ninka isagu sii dul fadhiyayaay day isaga u taallaaye maxaan ku dhahdaa anigu kuma haysto. laakiin shacabka iyo taageerayaasha iyo deegaanada aanu ka soo jeedno
waxaanu leenahay halkii dalkeenna iyo dadkeennaba aynu haddaanu nahay dadkii idin matalayay oo qarankana degmadana kusoo matelay deegaanadayda degmada Boorama xildhibaanadii 2012 imikana ay dadku nin ay ka sugayaan inuu dadku maxaan ku dhahday indhaw dadka indhaha waan ku jiraa marka waxaan isleeyahay waan isku iman doonaa waan wada tashanaynaa. waa Jamaal Cumar Tube, telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.